waa salaamantihiin. Magacayga waa Betty. Waxaan ku noolahay dalka Itoobiya. Waxaan dhashay sanadii 1994. Hooyaday waxay siisay macluumaad kooban oo ku saabsan aabahay. Waxaan u maleynayaa inuu Muqdisho ku nool yahay. Magaca aabahay waa Amiir Macalin Maxfuud. Hooyadiis yacni ayeeyadeyna waxaa la dhahaa Maryan Saciid. Muqdisho ayayna ku noolaayeen. Hooyadeyna 6 bilood oo kaliya ayay Muqdisho kula nooleed. Ma aqaana inay la dhasheen wiilal iyo gabdho badan, balse waxaa la ii sheegay 2 ka mid ah oo kala ah Istanbul iyo Falastiin. Waxaan hayaa sawir, waxaana la ii sheegay inay ku noolaayeen Bakaaraha. Xogta aan hayo waa intaas oo kaliya. So the living area is Bakara, and I don't know one of the members of his family watching this video. Aad baan ugu xumahay. Ma garan kara in muuqaalkan ay daawan doonaan qof ka mid ah qoyskeyga. Mana garan kara xitaa inuu aabahay daawanayo. Fadlan ila soo xiriira. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Watching this video. Tani waa gabar Soomaali ah oo hooyadeed Itoobiyaan ah. Waxay ku soo barbaartay dalka Itoobiya. Weligeedna ma aysan arkin aabaheed, balse hooyadeed ayaa u sheegtay macluumaadka aabaheed oo kooban. Walaal, haddii aad aqoonsato qoyska ay sheegayso, ku caawiya inay hesho reer aabaheed. Fariintan waxay idiin soo gudbisay City Somali TV iyo raadiyo. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo u bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.